in madaxweynihii dalka uu soo booqan waayo gobolka Waqooyi Bari iyadoon lagu jirin olole doorasho waxay noqotay caado madaxda oo caajis uu ka muuqdo ama shacabka oo la qabsaday gacan bidixaynta tii ay doontaba ha noqotee taasi bedelkeeda Soomaalida ayaa loo daaray cajalad ka hadlaysa inay xilal sare ka hayaan dawladda dhexe sida wasaaradda gaashaandhigga taliyaasha ciidamada booliiska iyo sirdoonka iyo wasaarado hase ahaatee fikradahaasi waxa ka dabalalmanaya hal xiraalayaal ay ka mid yihiin kow maxay kuraastaas soo kordhinayaan haddii wali ay taagan yihiin caqabadihii 60 sano ee la soo dhaafay taagnaa oo kuwa kale lagu daray laba siyaasiyiinta Soomaalida miyay awoodi la yihiin inay madaxweynaha ku qanciyaan imaanshaha gobolka saddex maxaa ka jira inaysan jirin mashaariic ay madaxda Soomaalida ka soo shaqeeyeen oo ay hor dhigeen madaxweynaha si uu uga caawiyo meelmarinteeda sidaasina uu ku yimaado gobolka aan ku dhaaf raadinta jawaabaha su'aalahaas aan si dib ugu soo laabto sheekadeeda hal sano ayaa laga joogaa tan iyo doorashadii madaxweyne William Ruto wuxuu booqday dhammaan gobolada Kenya oo qaarkood uu ka daafuray mashaariic horumarineed balse ilaa iyo hadda uma soo jeesan Soomaalida isbuucan wuxuu madaxweynuhu joogaa Mount Kenya oo uu shacabka gobolkaas duudka u saari doono mashaariic tirabeel ah daawade xusuustaada aan dib u celiyo 10 sano ee uu xilka hayay madaxweynihii hore Uhuru Kenyatta hal mar oo kaliya ayuu Waqooyi Bari u tagay xaraka jaridda mashaariicyo horumarineed oo qaarkood dhicisoobay xilligaas oo ahayd 2016 isla markaana dawladdiisa ay ku guda jirtay ololihii dib u doorashada ee doorashadii 2017 waan ogahay inaan culays ku saaray balse su'aal kale aan kugu dara daawade William Ruto ma wuxuu sugi doonaa dhamaadka madaxweynaadkiisa si uu u yimaado gobolka deetana uu afka dufan u mariyo shacabka iyadoo gacanta kalena uu ololihiisa doorashada ku wato falanqeeyaasha arrimaha hoggaanka ayaa aaminsan in marka kaliya ay Soomaalida iska dhax arki karto dawladnimada aanay ahayn dhowr qof oo xilal loo magacaabay balse tahay marka kow dib loo furo xarunta baasaboorka loona qafiifiyo shacabka helidda kaararka sharciga ee ID-ga laba macallimiintii laga qaaday gobolka dib in loogu soo celiyo ama kuwa cusub loo shaqaaleysiiyo saddex loo dhiso wadooyinka muhiimka ah oo 60 sano ee la soo dhaafay la mari la'aa afar amnigooda la xaqiijiyo lana dardargeliyo xidid u siibidda kuwa ku dhax dhuumaalaysanaya iyo shan xuduudda in dib loogu furo qaar ka mid ah shaqooyinka laga sugayo dawladda dhexe tilaabaqaadkooda waxa inta badan iska leh madaxda gobolka haddii ay ka seexdaanna sidii lagu yaqiinay waxay qodobada aan kor ku soo xusnay noqon doonaan riyo rumowgeeda tahay gacan calool ku jirta isku soo wada duube si gaar ah ayaan madaxdaas uga hadli doonaa waxa ay soo kordhiyeen tan iyo 2013 xilligaas oo dalka laga hirgeliyay dawlad wadaaga shirkadda iibinta iyo kireynta guryaha iyo dhulalka ee Triple A Properties haddii tale ay kugu xumaato taah iyo tiiraanya la tiicaysay soo jireen baa yiri wax la helo haddii la haleeyana la halo tala jirtee aan kula taliyay tilmaamtayda raaco ha turanturoon shirkadda Triple A waxaad ka helaysaa kireynta iibinta iyo suuqgeynta dhulalka isteetiyada iyo apartmentyada guryaha ay ku fududeyn karaan si aad ugu tamashlayso waxay ku kala yaalaan xaafadaha Eastleigh, Parklands, South Sea, Syokimau, Nairobi Metropolitan iyo ismaamulada kale ee Kiambu, Murang'a, Kajiado iyo Machakos. Dhulalka iibka ay ku hayaan waxay ku yaalaan Kagundo, Eastern Bypass, wadada Thika iyo Mombasa Road. Shirkadda waxay iibisaa dhulal iyo guryo la hubo mulkiyadooda iyo lahaanshahooda iyo heshiis sharciyadiisa u dhameystiran tahay. Tunisia iyo Uganda iyo Tripoli iyo Togo, Soomaali dhammaanteed talo waxay ku gooyeen shirkadda Triple A Properties anfacday la yaab kale degdeg aan u gaarno wixii faahfaahintaasi dheer kala xiriir eber 7 2 eber 9 eber 8 6 9 5